dhacsadaan ku dhaartay dhulkayga 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 inaan dhib galon dhaqsaw heloon dhulkayga dhacsadaan ku dhaartay. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنيقوها أبو صديق الشيخ فارح قبار كنا سوغان استوديو مقالة وحسن شقني يسي مقالة لندن وحان مانتا ليسو ديننا قيبت لباد ورئيسي مجاهد جامع كورنيل جامع محمد آدم جامع الضلال وداورتين قيبتي كوبات برنامجك قيبتي لباد وهذا نوجد غير دونو كوية سجال بقولية أفريقية سيدتنكي iyo anagoo ka bilaabi doona dagaalkii buuraha ku soo dhawo mujaahideen jaamaceen dolal qaybtii labaad ee barnaamijkeena waa dhawahay bismillaah waxa weeye dagaalkii burcaduure markuu dhacay waxaa la sii watay markii ay ka war heleen ciidankeenii ay dhibaato u geysteen inaanu baaqan dagaalkii gudagalka مقوركا قلبيتكا إذا كوا كلا هرية قلبيتكا مركو كلاي ومدسي مغيا هيبا إذا كدحدا قلاي إذا كاينا عسكر باوتدو دي مقرن سارجي شوغي رجع كميدا هوا شوغان ونولي قار ركبانول ركبتنا ودين ciidanka sheekh taliyihiisu waa nool yahay oo dhiga weyne dhiga weyne weeye qaybta sheekh ilaahay u naxariisteena qaybta sheekhna waxa galay Ibrahim dhiga weyne qaybtan muriye iyo barigana maxamed kaahin axmed marka waxa abandula waa ninka la yiraahdo maxamed cali ilaahay ha u naxariisto maxamed cali labada bariguba guushoodu تامبيد هالك دينا قلبيتك نافين اي كل عدد قيبت قلبيتك waxa galay عبد الله عسكر صدح قيبود بحي وقلبيتك عبد الله عسكر دغه وينه iyo kaahin waan gartay قلبيتك نافين xoog laba ku dhacday ciidan halka dhaxda oo gamca dheer watay uu gali kari waayay oo ma galin iyagu annaga iyo saaxiibka loo arag waafiya ilaahay ha u naxariisto arag waafiya waxaan hawlgalka ka wadnay in aan ciidanka xuduudku aanu ka daba tegin ciidanka iyaga marka reedab khaatumo marka dhabarjibin baa wadeen jeeyalaaye meesha daba gorayaale gorayaxun ciidankaasaan ku samaynay damdamin weyn iyo khalkhalin wajeedinaysan marka waxa weeye wadooyinkaanu goynay waanu go'doominay inay gurmadaan baanu u diidnay sidaa daraaddeed nafis badan buu ciidanka iyagu helay ciidanka meesha la yidhaahdo sheekh iyo ciidanka bariguba intuba nafis bay heleen khasaare badanna waanu u geysanay hadday miino tahay la kacda iyo haddii ay tahay ambushaan u gallo iyo hadday tahay miisaanaanu saaraba ciidanku iyadoo uu buurta ku jiro 84 bishii koob iyo tobnaad weeye ayaa diyaaradii la afduubay Ethiopia la fadhiisiyay awal cadame buraan iyo ninkii la odhan jiray baashadiid labadaa nin baa afduubay adigu ina waraaba yar deera ku biiray markii dambe waa jiraan laakiin labadii nin ee qorshaha lahaa afduubka lahaa labadan nin baa waan gartay awal cadame buraan wuxuu ahaa nin sarkaala oo ka tirsan ay jeesha nin kale macallin u abana dee saaxiib oo hawlgalkan wadawaday ay ahaayeen muddana ka shaqaynay bay ahaayeen waan gartay waa ku guulaysteen alxamdulillah magac iyo maamuus baa SNM iyo taariikh baa ugu soo heetay waa dhab buuralayda ayay la kulmeen hawlgalkii buuraha sidaas buu u dhacay 84 habba New Yearkii
shan iyo siddeetankii iyo afar iyo siddeetankii kala baxoodii waqooyiga waxaa la saaray bando in aan cidina bixin gaadhina socon haye baa la saaray waxaanu diyaarinay in aanu dhul badan burburino number one shan iyo siddeetankii waxaanu gallay oo burburinay oo koowa meesheeda bisaqa oo ciidan badan la fadhiyay ciidan la yidhaahdo 55 ayaa fadhiyay konton iyo shanaad guutadii konton iyo shanaad indhaheeda hore ahaayeen duruqsi iyo meesha la yidhaahdo gorayaxu oo uu haysto ibraahim caydi inkii naga soo horjeeday lablable saddexdii iyo barhkii baanu gallay afartii oo dhow dhow waxaana watay ninka la yidhaahdo axmed mire maxamed nuux axmed mire mujaahid axmed okay 5 nin baa nagaga geeriyooday 6 oo nagaga dhawaantay annagu xerada waanu qabsanay waa burburinay tangeeri waa gubnay haddii alla ka dhigo gawaadhi waanu ka soo qabsanay waanu ka soo baxnay annaga oo guusheedii xambaarsan baanu ka soo baxnay akala noqoteen waanu soo noqonay hub intee leeg ba qaadateen hubku wax weeye ma hub waaweyn maanaan helin laakiin gaadiid baanu ka furan gaadiid baa ka furateen waxaan caawinayey saaxiibadayo halka yagii baan ku noqnay iyo fadhiisanka yagii waa 5 iyo siddeetankii waxaa xigay meesha la yidhaahdo dabakoryaale waa burburinay xerada maanaan qabsan way meenaystanayd khasaare badan baa gaadhay annaga khasaare waana gaadhay laakiin ma badnayn 6 iyo siddeetankii 5 iyo siddeetankii 7 iyo siddeetankii meesha la yidhaahdo 5 iyo siddeetankii waxaanu burburinay meesha la yidhaahdo laba sagaal labi sagaalaad 4 iyo 10 baabuur baanu ka kaxaysan 4 iyo 10 gaadhi oo gaadiidkii ugu badnaa mala furataanba waxaanu kaloo burburinay meesha la yidhaahdo ina guuxa meesha la yidhaahdo ina guuxa ka sokayso iminka magaceedii waa laqsanahaye inaanu burburinay waxaanu burburinay belideeg ciidankii fadhiyay 3 iyo 10 baabuur aanu ka kaxaysan oo hal taangi ku jiro oo bmk 40 ku jiro waa dhirigteen markaa ya waa dhirigteen maalinta oo SSDF waanu isgarabtanayna waxay galeen buuhoodle iyana sidoo kale waa laga soo bilaabo buuragalka dabadoodii 5 iyo siddeetankii 6 iyo siddeetankii ilaa iyo meesha la yidhaahdo toon baanu galoo qabsanay fara weynaanu qabsanay waxaanu qabsanay meesha la yidhaahdo geed ballaadh xuduud oo dhan baanu dabas ka dhignay waxay noqdeen in awood laga baqa ay noqotay SNM ilaa awal ku dhufoo ka dhaqaaqiyo wax yar iyo halkanay ku dhuunteen iyo hadh la isu badheedho hadh cad la isu badheedho iyadoo nin aan laga gabanayn bay noqotay 87 ayaa la soo galay ayaa timi 87 waxaa la galay stationka burco saldhiga
maalintaa booyadaha iyo xiisaha ay dadku u qabaan haddaba maalintaa booyadaha inoo taataabo iyo sidiiqo kuu taataabtay maalinta booyadu waxay ahayd maalin cad oo ilaaha casaawajalla ahi qofku marka uu guulaynayo si yar buu gulaya maasha allah waxaa isugu kaaya yimi taasaa dhaba ciidan ilaahay baa awood lehe ay markaa isleeyihin waa awood badan yihiin oo bisiqa waraabeeye meesha la yidhaahdo haddii nasiye iyo talabuur intaa isaga yimi intaa iska yimi waxaanu iska helnay boodaha markii hore waxaan kasoo afduubnay meeshii xaggaa ka timaadeen idinku xaggaa ku sugnaydeen markii hore waxaanu ku sugnayn meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo raamale raamala ka timaadeen haa maxaa ujeedada u socoteen shidaal shidaalaan baa idin haysay shidaal baan doonin imisa intee baa hayd burca ku xoreyno tira intee laag baa haydeen 17 nin laba tiyotaan wadanaa mid guur banaan oo saadka noo sida iyo mid guur saaran yahay anagu 17 baan afar baan maanta ku noolahay laba maxamuud iyo saciid yare oo saaxiibka harag waa faa'iideeyay markaa allah u naxariisto ilaahay u naxariistay taliyuu noo ahaa anaa baan dulan u ahaa alla baan dulaa idin kada waxaanu ka soo afduubnay meesha la yidhaahdo gumbur maygaag oo beer iyo u dhaxaysa meesha la yidhaahdo unuli laba booyadood oo labadu ay shidaalka ka keenaan meesha la yidhaahdo jabuuti bay ahayd dadna waxa uga shambeer waxaa ay geyn jireen wadadii garowga halkaa soo marteen marka raamala ka timaadeen waxaanu soo dadka halkaa u faahfaahay xayr ducataan waxaanu soo marray meesha la yidhaahdo meeshan la yidhaahdo haddii alla ka dhigo habeedle halkaasaanu soo marray dabeedna halkaasaanu soo marray xayr ducato xayr ducato ayaanu qarkeeda soo marray balambaal baanu marray in yar xaggan ka marray meesha la yidhaahdo baanu marray gumbilbax faayaanu ka degnay dabe halkaasaanu 8 oo wax dhiman subaxnimo labay bootaas isu dhaafiyay mid waa buuxdaa midna waa maran shidaalka soo shubtay marka waa markii wadada talyaanigu samaynayay boosaaso halkaa gasheen marka faayo marka faayo ka degnay ayay ka dabeedna degtay waddaas ugu leexnay dabeedna halkaasaan u galnay dabeedna labadii baa halkaasaan kasoo dulay gumburli wax baanu soo marray oo soo kaxaysan labadii boodood waxaanu soo marray meesha la yidhaahdo beele eeday balambaal baanu dhinac ka soo marray halkaas habeenkii bay ogaadeen inaanu gudaa jirro waxa meesha la yidhaahdo aanu iska helay cadceed galabeedda meel la yidhaahdo guryo dhigala waxa weeye waa 10 iyo barhkii subaxnimo aye meeshu geed ma leh buurna ma leh boholna ma leh waa banaan gurmadna ma leh subxaan allah ilaahay uu baadee gurmada ilaahay baa gurmada halkaasaanu iska helnay 12 beebe meelahaasaanu halkaa isku helnay 12 beebe taliyihii na siiya markiiba waa dhinta oo awoowe la odhan jiray gaari barona wadata yaa waan taaggaa baadi sooc baan isula baxnay taaggaa markaan isula sooca ay tahay 12 oo dhow ayaa ninkii odayga ahaa ee meesha haystay gaaska haystay oo cadceed ayaa wuxuu ka qaylinayaa meesha la yidhaahdo qoryaale gobka weyne qoryaale yaa idin dhaafin waryaa yaa idin dhaafin hadday dhaafaan maxkamaddii weyla joogtaa ilaahay furan inaan maxkamad waxaan idin saarin inamadaa yaryare maalin walba waxay doonaan intay samaynaya haddana iska tegaya nimankaas way tegin qabta waxaan naga tegey gaadhigii saadku noo saaraa iyo baan naga tegey hagu qabtay adigu dee raggu isku wada mid maaha dee kolley ma garanaysa waa diday ninba la khalkhalay labadii booyadood waxay wadaanba waa naga fadhiisiyeen midna sana dhalkay kaga dhuftay midna taanga biya taagga dheer baanu isula baxnay 4 beebe baanu ka gubnay 4
afar bebe bal biyo markaanu afar beebe ka gubno oo seeka uu ka gubay ayaa beebe waliba cararay bixiyo bixi fogaaday mid baa meel fog naga soo toogtay oo dareewalkiibuu gacantaa ku gooyey waa shagaraabo allah u naxariistay ilaahay naxariis labada shakala dambana mid buu ku jaray ushii steeringa na bartankaasoo kaga dhufto waxaa soo hadhay nud yar xasow yar baa soo hadhay taayirka dambana kaga dhuftay subxaan allah tii noogu daray baa gaadhigiid ka fadhiisay ma fadhiisan oo nin ilaahay la jiraa siduu u guuleeya waa yaqaan waxaan kugu yidhi wuxuu yidhi jaamac saaxiibka ilaw ku naxariiso maxamed xaaji harigwaaf harigwaafi maxamed xaaji ilaahay ha naxariisto lii harigwaafi jaamac maxaad u malaynaysaa markaasaan ku yidhi ilaahay baynu leenahay markaasuu yidhi deg aan igu soo diro yidhi cabdi aar deg aan haye buu yidhi maxamuud yare deg afar kale igu soo diray shan baa noqotee inta aan gaadhiga ka soo bedelaya taayirka inaga reero nimanka waa idinkiyo ciidamada isaga soo gurmaday 5 meelood ee muggiyo miisaanka waxaa noo soo muuqda markaa kuwii taalabuureed oo nagu soo dhow gaadhigii intuu lambar 3 saa dhulka ugaga gooyay oo bahalkii ridootadiisaa ugu riixay u dhaqashay nin waliba oo sii eego salama soo noqonaya وضمن العضلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن waxaan sitaa 7 suuqi mid ku taagan yahay cabdi aarna wuxuu ii sidaa 3 xabadood oo boosh dhabar uu ku sido boosh dhabarna waxaan ku xambaarsanay 6 xabadood baa wata ana cabdi aar baa yidhi warigaho rasaastaada maxaad samaynaysaa markaasuu waa isdilayaa وما حد يدري إذا ما قالوا لي أنت والله يبغى قبل ما نبقى يا موهي لكن لقد تودي ذي نبقى موهي إلهي هو نحرست الله هو نحرسته مركزان كوري أنت ترى سديتا بقول من ما يعني ولا بقول هذا فنتري كات كم قصولي فنتري كوي من ماي أترى استلنا أنا جاي عليه وبالله لما أساسا هو هذا ninkii ciidanka watay oo harubka sare ku fadhiya dagacaleen nin walo taliyaa magaciisa waa ku haya dagacaleen talabuur haysta kusoo dhawaado anigu tuutaan gashanaha erogafina tuutu gashaye inta kale waa dharad ciidan bay ku moodayaan markaa waa gacanta ii taagaba warana layn ciidankoodii moodaya waa soo dhawaada 50 mitir markuu ii soo gaadhay aan faraha kaga qaaday baasuki halkaa uu exaaska ka sii daayo qiiqa iska ka xaraysa gudaha xabadu ku qaraaday ana abtigayo maanta buuhoo la jooga oo la yidhaahdo ina maya laadan faaliye ayaa gandharika ride caloosha ka doxda abtigay baa aaway u noqday cabdillaahi maxamuud hangool allah u naxariisto ilaahay u naxariisto hooyaday in adeerkeed ma weeyo walaashay iyo eedadayna waa u kala dambeeyey rasaastii yareeda lagu bilbilay hungurigaasaa go-ay taliyii marbaa looga cararo inuu dhintay baan filayaa dee beriga waxaan kugu yidhi annaga iyo nafi waanu kala quusanay shantayada waraabaha loo suneeyey cabdi aar muxuu sameeyey ninkii cabdi aare markii aad ka cabdi aar markii aad ku gaxraysay dee wax weeye waa ninka dusha ka tooganaya nimanka dabaduu qabtay annaga oo iska majasuuxa oo leenahay tolow sidee bay noqonaysaa ayaa bahalkii gaadhi ahaa oo sidaa u libadhsan taayirkii laga soo bedelay harigwaaf allah ilaahay ha u naxariisto maxamed xaashi muuse geesi dhalay
fula markaasaan fula wadheer qalalkan halka ka yar marna gaarigii soo hagaajiyo lug ka soo bedelay bilelan marka halkuu kaga soo bedelay tegey dee adigu 2 kilomitr ilaa 3 kilomitr markiiba dee 4 isbeera baa saaran dadna halkaasuu ku soo bedelay markiiba dee ma taqaanaa 4 darawal baa nala socda kaa gacantu go-aantay mooye 3 kale nala socda waanu ku talagalay waxan sidaa gaarigii baa fuusheen adigan ful riyaxlo iyagoo geedkaa saaran bayna arkeen oo dabeedna dhirtii bay ka daateen oo dabeedna waa yaaceen waa hareen marka waanu galbanay ninkii wuu naga dhaawac dhintay baasha garaabo ilaahay ha naxariisto allahu naxariistay nin aada u dafa buu ahaa ilaahay ha naxariisto kaaboedu ilaaha casaa wajalla baa ciidan malaa'igeed noo keenay oo nagu daray oo nala dagaal galay oo aan hubo oo aan isweydiinay waryay ahaayeen ciidankii badnaa ee areerteenna marayay oo aan nin quri odhan 4 nin baanu 17 nin maanta aan ku noolaa siciid waa salaamayaa waa caaqilka faarax maxamed weeye muuse cabdalle faarax maxamed wareerkii maxamuud kale waa reer cadaawe kuwait buu joogaa isna waa maxamuud wadaad baa layahaa isna waa salaamaya maxamuud yare maxamuud cumar baa layadaa hargeysuu joogaa waa iska yaree tabcaan oo waa xanuunsanaya ilaahay caafimaad ku ilaahay caafimaad siiyo ilaahay caafiyo midna waa aniga 4 sano adna ilaahay cimrigaa ku dheereeyana ku leenahay hadda ma garatay si wanaagsan intaas ayay ahayd dagaalkii howlgalka murco nin la yidhaahdo cabdi fayr baa watay allah u naxariisto markii dambena ku geeriyooday meesha la yidhaahdo xeere gaabo ilaahay ha naxariisto nin aada u daf ahaa kamaan doo soo maray meesha la yidhahdo manaas lagu soo tabaray macallin buu ahaan jiray ninka la yidhahdo harag waafe maxamed xaaji muuse walaaladii waan salaamayaa weli maxamuud hooyadii hadday nooshayna waa salaamaya iyo walaaladii gabadhiisiina waa salaamaya uu ka dhintay ana cabdi fashle anaguna waa salaamaynaa aada iyo aad baan idin salaamaynaa inta dhimatayna ilaahay ha naxariisto intii dibadda intaan 88 la gelin laakiin dagaalka xooggiisii wuxuu isbedel keenayaa gudagalkii weji kale u yeelanaya weji kale sababtu ay tahay dad yar baanu ahayn markaanu Itoobiya joognay laakiin markii gudaha la soo galay ummadii oo dhan baanu nimi muqurkii ha wala ka faa'iideen ummadii oo dhan baanu nimi wala ka faa'iideen ha oo barakacday oo dagaalka qoriga qaadatay oo haddii alla ka dhigo qof waliba uu dagaalantay rag iyo dumar galab iyo gaashaan baa heshay ma sha Allah salaamaya dumarkii beriga nala ma garanaysaa dee nala socday ee nacaawinayay caashahaada halkan ay joogtaa canab jarmalka canabeen waxa weeye canab shakaal faadmo cali abukar ilaahay u naxariista aada iyo aad baan u salaamayaa la tirin kari maayo hibo gabadhii qoriga ku furatay haya weyni dina xoog baasle gabadhiisii ma garatay aad baan hablaha u salaamaya habla fara badan baa idinla dagaal galay waxa weeye haddaan habluhu jirin halkan kuma socdo ma sha Allah ilaahay hadaayo halkan kuma socdo hablaha inta nool cimrigooda Allah dheereeyay leenahay iyo mujaahidiintaba intii dhimatayna ilaahay ha naxariisto halka waxaanu ku soo gabagabaynaynaa qaybtii labaad barnaamijkii ama waraysigii qaybtii labaad ee barnaamijkii ama waraysigii mujaahid Cornel Dolaal jaamac maxamuud aadan Dolaal iyo qaybtiisa labaad aynu soo gabagabaynaynaa waxaynu u guda gali doonaa qaybtii saddexaad iyo wacdarihii ayaa idin soo socda burburintii maalmihii qadhaadhaa iyo ay ismurteen isna wajaheen nin odayo la yidhaahdo Tuki oo ku sugan dalka Canada waa anigoo ah Wastiiq Faarax oo idin leh to be continue insha Allah qaybta saddexaad oo iyadana qayb aad iyo aad u xiiso badana anigoo Cornelka waxaan idin leenahay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا سعود غيب صديحات.